sheetku waa xaanshooyin waa waraaqooyinkaasoo marka wax lagu xisaabsado marka styleka uu leeyahay marka excelka waa noocan waaye wuxuu ka kooban yahay marka haddii aan jadwalkan si fiican u fiirino بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوعان وناكسن ميل كستا آد نقد دابانيسيد إيسي كستا آنو مقشد مركا لكسو دواو برشاد علمي كمبيوتركا قيبتيسي بيسي كمبيوتركا ويلي waxaan ku jirnaa barashada computerka waa institutionkiini Soomaaliyeed ee Somsec Technology package computerka buugiisa saddexaad aan ku qaadaa dhigi doono aan ku arki doono waxa la yiraahdo Excel sidaan wada ogsoonahay oo xog badan ka bixinay Excel waa barnaamij xisaabeedkii waa spreadsheet program waaye oo yacni aan ugu talagalnay in heerarka kala duwan ee xisaabaadka hadday noqoto bangiyo haddii ay noqoto xisaab gooni ah oo shakhsiyan qofka haddii lagu xisaabinayo badeeco haddii iskuulaad lagu xisaabinayo haddii mushaar lagu xisaabinayo haddii boonooyin lagu xisaabinayo inta mid one by one aan u aragno aan ugu talagalnay marka excelka guud ahaanba wuxuu ka kooban yahay waa barnaamij xisaabeedka waaye marka haddii aan guda galno marka cashirka koowaad waxaan arkaynaa marka waxa la yidhaahdo Excel waa maxay Excel marka Excel waa sheegna waa spreadsheet program that you can enter and calculate your values marka waa meel wax lagu xisaabsado waa sheetku waa xaanshooyin waa waraaqooyinkaasoo marka wax lagu xisaabsado marka styleka uu leeyahay marka excelka waa noocan waaye wuxuu ka kooban yahay marka haddii aan jadwalkan si fiican u fiirino fallaarteydana movementgeeda raacdid leenkan oo redka ah oo saan u socdo magaciisa waxaa lagu magacaabaa column marka wax leen kasta oo saan u socdaba kan hadduu noqdo kan haddii uu noqdo waxaa la dhahaa magaciisa column aa la lahaa sidaa marka cagsigeeda leen kasta oo marka jiif ah asagana saan u socdo dheerane magaciisa waxaa la dhahaa row marka box kastaba oo center ah oo dhexda ku yaala magaciisana waxaa la dhahaa cell marka cellka waa columnkan iyo rowgan boxka iska jarayaan meel kasta box oo leeyahay boxkaasa waxaa la dhahaa marka cell scroll barkana waa isa garanaysaan basic window lagu soo qaatay meeshan hoosena waxaa ku qoran sheet 1 sheet 2 sheet 3 oo by default ah waxaa la marka worksheet lahaa marka meeshan koro oo falaarta kanu nuucsanaysan magaceeda waxaa la name box lahaa oo de yani markii aad rabtid inaad ogaatid cellkan magaciisa waxaa kasoo muuqaa name boxkaas oo waxaa ku qoran AI waa maxay AI waxa waaye cellkan magaciisa waxaa la AI A1 aan dhahay A1 sababtu waa maxay waxaa waaye sida wada ogsoonahay cellkan wuxuu dhacaa columnka la dhahayo A iyo rowga la dhahayo 1 markaasaa A1 loo bixiy because of columnka wuxuu ku socdaa alphabetic A B C D E F G H I J saasuu ku soconaa rowan wuxuu ku soconaa 1 2 3 4 5 6 marka sidaa darteed marka cellkan hadda magaciisa waxaa la dhahaa F6 sababtoo F6 uu baxayn waxaa waaye markii al inta kor aadid xarafka la yidhaaho F ayuu galaa markii inta aadidna xarafka la yidhaaho 6 oo galaa marka labadan isku dar marka muxuu noqaa F6 alla marka magaciisa marka si aadan ugu wareerin marka inta fiirisid meeshaas uu ku soo qabo magaciisa marka maxaan baranay row oo joog tax ah
may column oo joogutax ah istaag ah iyo row oo jiifutax ah cell oo macnaha boxyadii ah godadkii ah scroll barkan iyo worksheetkan formula bar waxa la jiro oo asan xariiqidan kora ah meeshan kora ah karkiis xariiqidaas marka xariiqidaas korena waxa waaye waxay muujinaysaa wax kasta aad qoraysid oo type garaysid kaaga soo muuqda formula for example maadaama formulooyin iyo xisaabaad calculation lagu qoray excelka number kale ku siisa numberkaas marka calculationkiisa meesha ka imaado asliyan ina ogaata marka rabtid marka formula barkaasi kaaga soo muuqanaysa okay marka excelka waa kaasa wejigiisa marka waa kaasa excelka waxaan kaleeto arki doonaa adding and renaming worksheetka marka in laga bedelo magaca amba lagu soo daro worksheetka marka muxuu faa'iido leeyahay stepida la marayo kana to add worksheet processka la maraysa by practical waa intusan worksheetka marka waxa waaye ilaa iyo 3 sheet by default ugu diyaarsan meesha cashirka kood horta intaas ugu talagalnay by practical aan arki doonaa ilaa iyo worksheetada meesha ready ku ah waxa waaye ilaa iyo 3 worksheet marka worksheeda ku sii dareysa sida loo isticmaalayo excelka wuxuu yahay in hadeerkana aan wada arki doonaa excelkan soo kacsana marka soo kacsanayo wordka soo kicinay amal aan soo kicinaa marka meeshan excel message searchiga excel ku qoranaysa waa ka excel uu ku soo bax double click ku sii asaas oo kacayo waqtiga laga yaabo inuu qaato loading uu sameeyo waqti uu qaadanaa no problem inta soo kacayo marka idin si sharaxo waa uu soo kacay khadka cagaaran waaye marka planki iyo dooro okay excelka waa kana marka meeshaan ku baashaali doonaa si fiican marka wixii aan sharaxay hadeertan inta idin sharaxaya mid idin tusiyaa waxaan idin column waxa la dhahaa wax kasta kuwan oo a b c d e f g ilaa ay numberkaas ku soconayo waxa la dhahaa column si tusaale hada kaliya ku siiya haylaadkan leenka uu saaran yahay dhan magaciisa waxa la column please note gareyso meel ku qoro column okay numberska qaabkay ku socdaan for example kaliya marka inta ku siiyeen waxa la leenkan saan xariiqidan u laana magaciisa waxa la row okay cellkina waa maxay cellkina waa ka boxyada la box kasta ku dhifta magaciisa waxa la cell magaca ina ku ogaatid marka rabtidna waxaan ku dhaakan magaciisa ina ogaatid marka rabtid kor aad l intana aad 10 okay cellkan magaciisa marka waxa la l10 aan la dhahaa proof hada u baahantiina halka fiirin halka marka l10 ku qoran magaceeda marka halka marka saartidna namebox ku soo baxay nameboxna waa kana rowna waa kana cellna waa kana formula barna waa kana oo formula bar inuu yahay maxay cadeynayo hada for example inta waxaan ku qoraa kaleeta sayid aan ku qoray fiirin inta sayid ku soo baxday formula bar waaye marka okay another example formula bar faa'iido leh waxaan dhahaa kaleeta 10 plus 8 okay hal qaacida kaleed gareeya gadaala ka baro doona laakiin example ayna in tusiya rabaa okay qaacidan kaleed gareena
marka 2 alifkan meesha ku qoran hadda fiiri inta ku qoran 10 intana 2 ku qoran intana 2 alif ku qoran marka 10 marka inta ku dhifto meeshan maxaa soo baxaya 10 formula barkaas meaning miila laakiin 2 alifka ku dhifo 2 alifka marka ku dhifto fiiri waxa soo bax this is formula the benefit of marka formula bar okay kayaan ku mashquulin marka intana noo caday marka column iyo row iyo cell inta waa baranay waa maxay scroll barkina waa kana okay marka meeshaan sheetka hadda waxa ku qoran sheet 1 ku qoran sheetkaas marka meeshan pluska ku qoran ku dhifo marji new sheet ku soo baxay sheet 2 ku soo dhifo sheet 3 marka sheetad ku kuwana marka for example had adding samee marka adding samee oo kan waa adding rename ina samee marka magaca ka bedelan sheet 1 marka right kliga ku horleehay waxaan leeyahay marka rename magacaas marka waxaan ku qoraa marka for example 12 ka bilood oo kaleeta ara marka ina xisaabiyo marka June okay June oo kaleeta ku qortay bishan waxaan ku qorahaa July right click rename tan August okay oo macnaheeda aan ka wado xisaabka bisha June inta gashaa xisaabka bisha July inta gashaa xisaabka August tan halkaan gashanaa aku kale macnaha ku xisaabinaa haddii marka yacni qof maalin la tahay maalinta shaqeeyo waxaa leedahay marka meeshaan maalinta koowaad okay day 1 day 2 okay saas camal u jadwaleysay marka jadwaleysay day 1 xisaabkaaga soo baxsaysa day 2 xisaabkaaga 30 maalin hada shaqeysid inta maalin shaqeynaysid saas ku wadaysaa marka hadda waxaan baranay excel inuu yahay qadkan cagaaran waa barnaamij xisaabeed xisaab inuu yahayna waxa ku daliila sida buuga xisaabta u sameeysan yahay column-na waa kana joogo taxanaan lahaa horuna waxaa la lahaa jiifu taxanaan lahaa cell-na boxyadana lahaa cell-kan magaciisina waa markaa rabtid iidan iyo 9kan isku fiiri e9 lahaa amba inta ku ogaanay boxka direct u tag meeshaas ku ogaysa formula barna formuladii qaacida ku arkinay inta kana waxaa la intana waxaa la dhahaa worksheet-kaas marka ku soo darnay balaskana ku soo daritaan ah marka magaca ka bedelayna right click rename maleenay magaca arabna u baxsana waxa maleeyahay cashirku waa basic leeway in isla fahanay intaas xisaabta iyo hawsha runtaana hadday dib u bilaawo doonta aad baa u mahadsantahay waxaan rajeynayaa inaad fahantid baraatiki doontid casharada kaleetana si deganana aw dhegeysan doontid baraatikadana ku samaysid insha allahu tacaala aad baa u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh